دولة كينيا وحاول دولة أقونسان جريتانكا دولة حدا كتاليسو صوماليا دولة ذاتها وحي ممبر قطعي أفريكان يونيون وحي ممبر قطعي إيجاد وحي حرير لها الدولة لها هون في أفريكا أنك هدانا هاي دولة ما أقولانينو إني ودن كاننا ونقضو ودن كي لوغا دولاي صوماليا أو خلالاسا لوغا رداي إذا ما نجا جوغان صوماليا waxaan ballan qaadnay inaan waqti kasta aan ka shaqeyno nabadgelyada iyo xasiloonida dawladnimo inay ka dhalato waddanka Soomaaliya marka qolooyinka nabadgelyada loo xil saaray abaanduulaha ciidamada booliska Kenya iyo qolooyinka kale iyo wasaaradda amniga ayaa go'aan ka gaareen wayna la hadleen dadkii qalqaalinayay waxaa la yiri ninka raba inuu xisbigiisa u oleeleeyo marka xisbigaas waxa loogu talagalay in lagu shaaciyo oo lagu oleeyo waddanka Soomaaliya marka waddanka Kenya maanta ma ogolaanayno berri ma ogolaanayno dawlad kasta oo Soomaali ka dhalato inay garab la siiyo oo la garab istaago mooy in la dib u noqdo dawladda Kenya qayb kama noqonayso laakiin aadan barre maxaa ku xaqiijinaysaa in la doonayay in la dumiyo dawladda Soomaaliya ama laga weeraro halkan ma horta sharci ahaan sharciga Kenya ma qoraayo xisbi kale oo ajnabi ah oo waddanka xisbiyada ka dhisan waddanka Kenya kamid ahayn oo waddan kale ka jiro inuu shir public ama political rally inuu ku qabto waddankaanaga sharci u yaala ma laho laakiin waxaan ogsoonahay tan iyo markii Soomaaliya burburka ay gashay ilaa iyo dhawaanahan in shirar siyaasadeed iyo isu imaatinno siyaasadeed ay siyaasiyiinta Soomaalida ku qabanayeen magaalada Nairobi muxuu kaga duwan yahay marka Cabdiraxmaan Cabdishakuur wada siyaasadda Nairobi way kala tahay siyaasi hadduu imaado waddanka Kenya waa loo furay Soomaalida meel ay joogaan qurubada kuwa joogaan kuwa Soomaaliya joogaan inay barkood kuwa bukaa ay imaadaan oo caafimaad soo doontaan waddanka Kenya inay ka ganacsatadaan inay imaadaan ku nastaan marka shirar yar oo dad shakhsi taas anaka muhiim marno laakiin shir la shaaciyay oo public laga dhigay oo intaasoo kumaadad isku yeerayo taas sharciga waddanka Kenya ma ogolo hadda ka hor shir noocan oo kale kama dhicin waddanka Kenya oo laga soo horjoodo dawlad ka dhisan Muqdisho marka ma la idinka codsaday ma dawladda Soomaaliya idinka codsatay talaabadan inay qaadaan maya sharciga waddankaanaga ayay waafaqsanayn amniga waddankaanaga arrimaha u dhisan bay waafaqsanayn xiriirka aan la leenahay dawladda Soomaaliya ayay waafaqsanayn xiriirka aan la leenahay wadamada kale oo ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayay waafaqsanayn waxay waafaqsanayn arrinka annaka aan ka rabno inuu Soomaaliya ka dhaco Soomaaliya annaka aan ka rabnaa inuu noqdo waddan degan waddan dawladdiisa ay fursad la siini inay ummadda Soomaaliya ay fursad u siiso siday waddanka ugu degi lahaa oo nabadgelyo waarta looga heli lahaa arrintan iminka aad tallaabada aad qaadeen ma loo arki karaa caburin inaad samaynaysaan caburin annaka xisbi Soomaaliya ka dhisan sharciga waddankan uma qoray hataa xisbiga hataa Maraykan ka dhisan marka hadduu yahay xisbi Kenya oo maanta loo diiday inuu shir ka dhigo bartamaha Nairobi taas waa loo arki karaa inay caburin tahay laakiin xisbi ajnabi oo la rabo inay meeshan loogu ololeeyo aniga kula hadlayo waxaan ahay siyaasi xisbiyada waddankan ugu weyn baa madax ka yahay intaan kaco xisbiga Jubilee oo aan ka soo jeedo oo baarlamaanka aan uga fadhiyo dawladda Kenya intaan kaco Khartoum iyo Qaahira iyo Xamar iyo Jigjiga iyo Addis Ababa iyo Djibouti oo ololeynay ninkasta fursad leh inuu ololeeyo xisbigiisa una sugo waqtiga doorashada ka dhiman waddankiisa marka saas ayay qoraysaa qaanuunka xisbiyada iyo dimuqraasiga adduunka